tababarihii xulka qaranka Mexico Tata Martino ayaa shaqada xulkaasi Mexico ka tagay kadib markii ay soo dhamaatay ciyaartii ay 2-1 ay uga badiyeen Sacuudi Carabiya. Mexico ayaa markii ugu horeysay muddo 44 sano waxaa lagu reebay wareegga guruubyada ee tartanka koobka adduunka. Ciyaarta kadib tababaraha reer Argentina Tata Martino ayaa warbaahinta u sheegay qandaraaskiisa Mexico uu dhacay markii garsooraha uu yeeriyay siirigii ugu dambeeyay ee ciyaarta. Taageerayaasha xulka qaranka Mexico ayaa si weyn u saluugsanaa Tata Martino gaar ahaan markii la soo saaray liiska isku aadka koobka adduunka maadaama uu tababaraha uu ka soo jeedo Argentina isla markaana Mexico isku group noqdeen xulkiisa hooyo. Taageerayaal badan ayaa ku eedeeyay in intii aan la gaarin koobka adduunka inuu u janjeeri doono xulkiisa. Mexico ayaa guuldaray ka soo gaartay Argentina taasoo sal u noqotay ka haritaankooda koobka adduunka inkastoo ay kulankii ugu dambeeyay ay ka badiyeen xulka qaranka Sacuudi Carabiya. Dad badan ayaa su'aal ka keenay tacticada uu isticmaalay tababarahan markii uu la ciyaaray xulkiisa sida uu xulkiisa u soo adkeeyay kulankii Sacuudi Carabiya in ay aad u kala duwanaayeen. Tababaraha ayaa mas'uuliyadda ka haritaanka xulka dusha saartay isagoo shir jaraa'id ku yiri aniga ayaa sababta ugu weyn ahaa qalbijabka taageerayaasha xulka qaranka Mexico waxaana uu sheegay in fashilka xulka koobka adduunka uu ka dambeeyo oo mas'uuliyadda isaga qaadanayo.